shirkeenna amniga ayaynu maantay halkan ugu qabsoomay alxamdulillah shirku wuxuu ku saabsanaa arrimihii amniga xalay ciidanka amnigu waxay galeen howlgal ay kula dagaalamayeen argagixisadii oo wada kala furatay oo markii qaraxii iyo baskooladii iyo waxa ay dadka ku dhibi jireen iyo canshuurka qaadkii iyo telefoonkii iyo mushkiladoodii iyo mobile furashadii iyo la soo xaliyay hadda khamradii u guuray oo iyagu khamrada wadanka keena oo cabtayda maalgeliya oo ka shaqeeya fawdada una fahmay halkaas meel ayaan ku sii noolaan karaa inay tahay ayaa xalay ciidanku howlgal wuxuu ka galay xerada kabka magaalada Gaalkacyo halkaas waxa ka dhacay khasaaro nimankiina way baxsadeen cabtayda ahaa waana lagu raajoogay waa la soo qabanaya hal askari ayaa ku dhintay oo booliisa Allah u naxariisto howlgal qiimo badan buu ku dhintay isagoo oo munkar suulinaya ayuu askarigaas ku dhintay ilaahay jannaan uga rajaynaynaa qoyskiisii iyo ciidanka booliiska iyo dawladda Puntland waxaanu ilaahay uga rajaynaa samir iyo iimaan askarigaas magaciisa waxa la oran jiray Muxyidiin Cabdi Jaamac sheekeeye naxariista Allah siiyo in dhalinyaro ah oo sarkaal dhalinyaro ah askari ah oo shaqeeya oo booliis oo ahaa howlgal wanaagsan ku dhintay waana la daba socdaa ciidankii ilaa iyo xuduudda Itoobiya si galaan ciidanka aan ka daba diray nimanka qayb kamid ah halkaas ay u carareen waana xoojinaynaa howlgalkaas oo hadda ka horna ciidan baan u sameynay waana wadnaayo waa ka nadiifinayna argagixisadii qaybta kale nagu sii waarimayaan ilaahay idankiis annaga iyo argagixis hadba inay shaar gashanayso hadba koor soo bedelayso waa ognahay marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa dagaalka argagixisada qaybtii koobaad baa dhamaatay qaybta labaad oo ay fuuleen khamrada soo fuuleen oo ay alkoolistayaasha iyo khamrka ganacsiga ay ku soo biireen inaad qaybtiina ka qaadataan baa la rabaa maalintii kaasi dhamaadana mid kale ay soo fuulaan wadanka hadaan laga nadiifin waayimayaan ama qabiil ha soo fuuleen ama khamraha soo fuuleen ama meel kale ha yimaadeen argagixisadu oo waxaan la aqoon maafiyada ah maafiyadu maalinba meel bay dadka ka soo gashaa qodobka labaad wuxuu ahaa oo shirkeena maanta lagu soo qaatay arinta dhulka oo dhibaato badan ka timid waxaan sameynay bishii saddexaad ee sanadka bilowgiisii ahayd guddiga xalinta khilaafaadka oo akhyaar ah guddigaas waxaan u sheegaynaa dadweynaha waa guddi dawli ah oo xukunkooda uu xukun dawladeed yahay oo dadka dhulka inay ku kala saaraan aan u xulay oo isugu jira looyaro culimo udiin iyo injineero iyo odayaal dhaqan ah isugu jira oo dadkii ashraaftiisii ahayd qayb kamid ah oo aan u xulay dhulkeena umada kala saaraan shaqo fiican bay qabteen dhulka in badan baa laga nasta ciladihii yimid qayb waa ka ballanay waxaa la rabaa in horta lala shaqeeyo dadweynuhu xukunkooda ay ogaadaan inuu yahay xukun dawladeed oo aan soo noqosho lahayn waxyaalihii iyaga ay tabahayeen qayb kamidana iyaga iyo waxaanu isla xiriirinay maxkamadda gobolka iyo qaybta booliiska oo hogaamiyo muumin baanu isku xiray waxyaalihii noocaas ah iyo dadkii ay xukuumeen xukunka qaadan waayay iyo kuwa maartay fal khaldan galay iyo waxa soo waxaan u deynay iyaga booliiska aan isu deynay qayb waxa jirta dhibaatada dhulka jirta oo dhan iyo xaalufinta deegaanka oo dhan kowka waa niman kale cagafley maanta waxaan ka qaadanay go'aan iyagii baa mushkilad noqday number 1 horta cagafta oo dhan waxa la rabaa inay isdiiwaan galiyaan oo dawladda hoose wax cagaf wadanka yaala iska diiwaan galiyaan xafiiska dawladda hoose bariis wax laga bilaabo wixii cagaf wata inay tagaan oo iska diiwaan galiyaan labo cagaflihii lagu qabto isaga oo aan warqad qofku dhulka u jeexayo uusan warqadii dhulka dawladda hoose wadan waxa la isugu darayaa ganaax cagafta la ganaaxo oo lacageed isagoo la xiro iyo 6 bilood shaqada laga fariisiyo cagaftaas oo ay dalka mar dambe ka shaqeynaynin cagafti arinta lagu qabto cagafti waxay noqotay mushkilad waxay noqotay waxa ugu daran oo dhulkii ka shaqeysa oo aan la xallin karaynin oo maalin walba meeshii la istaagaba dhulka iyagu qodaya oo meeshii ay soo xalliyeen oo ay soo kala saareen dadkii ilayaashii wixii loo kala saaray xataa burburiya marka cagaflayaal oo dhageysta maanta laga bilaabo cagaf aan register dawladda hoose ka ay horta cagaf ma kow qof aan warqadii dhuljeexa dawladda hoose ka wadan uma dhaqaaqi kartaan
cagaftii u dhaqaaqada waxaa la isugu darayaa ninka cagafta wato dareewalka ka ah waa la xirayaa cagaftana waa la xareynayaa qaybta booliiska lagu xareynayaa 6 biloodna ma shaqeynayso ganax lacageedna waa lagu dhufanayaa intaas ninkii warqadda ayaro booliiska iyo registrationka ka xiga inta ninkii qaadan waaya hadda isaga yaqaan meesha ka shaqeynayo gobolka mudug kama shaqeynayo wixii waxa ka shaqeeya waa fidmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo qiimaha badan oo gobolkan muddadii waqtiga adag ahayd sida adag uga soo shaqeeyay qiimahana badan aad baan idinku mahadcelinaynaa hadda waxaa la idinka rabaa wacyigelinta iyo barnaamijyada iyo dadka dhexgalkiisa iyo ciidamada ka warqabkiisa iyo inaad qaadataan qayb door oo wanaagsan baa dalka ku leeyihiin haddaad damcada waxayna haleysaan cid ka xoog badan ma jirto haddaad damcada waxayna hagaajisaan cid ka wanaagsan ma jirto laakiin annagu hadda sharaf baan idin haynaa saxaafadda gobolka mudug gabi ahaanba dad aad u wanaagsan oo shaqo fiican haya weeye marka maalintiina iyo shahaadooyinkiina iyo sharfidiina waa idin soo socotaa waan idin ogsoonaa wax aad qabateen muddada